السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal isku salaad wanaagsan iyo mar kale halkani waa Xisb Groups oo aad uga barateen casharo tutorial ah kuna saabsan designing iyo waliba editing iyo programming waxa la yiraahdo saddex mawduuc aan bixinaa insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa runtii cashar arday ay soo weydiiyeen kaas oo aan ku baran doono qaabka loo sameeyo waxa la yiraahdo Facebook tabs waxa la yiraahdo markaad booqato page-ka Facebook Xisb Groups runtii waxaad arkaysaa markaad booqato Xisb Groups page-ka saddex button oo cusub aad arkaysaa runtii kaas oo ay ku qoran tahay booqo YouTube hadda ku dhufto ka iraado booqo YouTube wuxuu si toos ah tusayaa muuqaaladii ugu dambeeyay aan soo dhigay channel-ka kuwaas oo halkaan ku wada diyaarsan soo jeedin cashirka ugu dambeeyay waxa ahay video editing cashirka afraad oo ahay marka halkaan ayuu wax walba kugu soo bandhigayaa hadda page-ka ku xiran tahay fadlan button-kaas booqo si aad runtii casharada halkaas uga wada aragto runtii waa muhiim waana runtii waa useful ama wax loo baahan yahay casharadaada YouTube-ka laga wada arko Facebook page-ka ardaydu halkaas si toos ah u arki karaan marka waxaan sameynaa maanta bal arday ay soo weydiisay oo ay dhahaan qaabka u sameysay bal noo soo bandhig annagana maadaama aan doonayno inaan ku sameyno page-keena suurta gelina in qofka uu ka daawado YouTube-ki marka halkan joogto qaybta searching-ka waxaad ku qortaa statistics statistics html ayaad ku qoraysaa marka halka ku qorto hoos u degaysaa static html iframe tabs waaye marka kaas baan ku dhufaynaa kadib markaan ku dhufano halkaan waan keenayaa waa application ujeedo inaan isticmaalo iyo ogolanaya marka soo ujeedan option page ugu horeeya waaye wuxuuna isiinayaa runtii inaan isticmaalo webkan dan si all dhaho page kale isoo bandhigaya runtii application kale aan ayagana isticmaali karo runtii marka waxaan leeyahay marka use now markaan use now dhaho runtii wuxuu geenayaa meel blank uu geenayaa halkaas oo aan wax walba ku diyaarin doono kana sameyn doono insha Allah marka waxaan leedahay add static html to a page inaad page ku darto ku ogolaanaya soo jeedin marka all of the Facebook pages that you are admin have already added okay marka waxaan sameeydaa hadda wuxuu leeyahay waad ku dartay intii lagu ogolaay marka adiga qofka waxa loo ogolay inuu ku daro runtii 7 saac fila marka okay aan leeyahay dhimalahan marka aad sameysid wuxuu ku leeyahay page dooro ku leeyahay halkaas page ka dooranaysaa marka page ka doorato ku laabana page-ki marka page ka doorato kadib waa uu sameynayaa hal yiraahdo tabka uu sameynayaa markuu tabka sameeyo adiga shaqo qamaysid hadda anaga marka page soo doorato automatically asaa u sameynaya automatically u sameynaya meesha uu geenayo inta marka indhaha ku haya marka automatically u sameeyo page-ka tasiib booqo waad ku arkaysaa tabka aan hoos u degno asugna waxa qadka yara culus sugaynaa marka halkaan imaado qaybtan waxaa fiiridaa bidixda fiiri waxaad arkaysaa runtii waxaad arkaysaa welcome ku qoraya asiga tabka markuu sameeyo new-ga ah wuxuu ku qorayaa waxa la yiraahdo welcome ayuu ku qorayaa marka kaasaan ku dhufanaynaa tabkaada wuxuu ku qorayaa welcome uu ku qorayaa bis adaa laga rabaa magaca inaad ka bedesho wixii aad ku sameeyay marka asiga welcome bis ku qorayaa marka double click aan leenahay saan waxa uga bedelno halkaan ma haynaa waxaana siinaa la yiraahdo set up tab kaasaan ku dhufaynaa
marka kaa ku dhufano halkaan keenaya marka control all leh iska dilid waxa meesha ku jira. marka iska dileedo waxaa soo diyaarsataa runtii waxa halkaan dhigay ama link halkaan dhigay lahayd. ana hadda form yaraan soo dhigayaa oo registration ah. marka adiga waxaad soo galeeyaa that YouTube video soo galaysid waxa uun laga baahan yahay waa link. waxaan sameynayaa marka soo jeedin halkaan aan sameynayaa link soo dhigaya. waxaan leeyahay form isdiiwaan gelinahay runtii waxaa isdiiwaan geliyay oo ku xiran Hays Groups 231 arday. marka waxaan sameynaysaa waxa la yiraahdo kan waxaan ka rabnaa linkan ka rabnaa. marka waxaan leenahay empty link embed link waxa loo baahan yahay mar walba link caadi laga rabo waxa laga rabaa embed link laga rabaa. halkaan aan koobiyin waxaan leenahay control c iska xirana kan ma baahnin. halkaan ku laaban waxaan leenahay marka halkaan aan paste ku dhaynaa marka hore ka qaad soo jeedin. sidoo kale waxaa ku dari kartaa waxa la yiraahdo YouTube video BRD ama breaks dheh ataqaana space si loo sameeyo fila casharadii HTML oo daawatay oo hadda runtii meel gabagaba maraya daawan fadlan booqo YouTube channelka Hays Groups si aad casharaas u daawato. sidoo kale waxaa socda course video editing insha Allah waxaan bilaabi doonaa course saddexaad oo ah graphic design. marka waxaan ka tegaynaa YouTube ka tegaynaa marka YouTube tagno waxaan doonayaa inaan ka soo helnay video runtii aan tusay bal qaabka la soo koobiyeeyo. okay marka wali videoga wareegaya laakiin waxaan ku tusay qaabka loo koobiyeeyo empty file-ka ama empty URL-ka. right click dheh soo aragto runtii u jeedaa copy video URL naas copy embed code. marka kan saddexaad waan ka rabnaa kaas marka waxaad leedahay click ku siinaysaa. hadda marka copy waa haystaa waxaad ku laabanaysaa page ku laabanaysaa halkaan paste ku dhahay marka kadib waxaad leedahay save and publish. marka save and publish tiraado waxaad u baahan tahay inaad ku laabato Facebook page inaad ku laabato ka laabo runtii halkaan Facebook page ku laabaynaa si aan bal u fiirino waxa aan sameynay. okay halkaan soo jeedin waxaan soo koobiyeynaa laba linkooda waxa la yiraahdo registration form ayuu ahay linkiga labaadna waxa ahay muuqaal aan ka soo koobiyeynay YouTube-ka. marka soo jeedin labadiiba halkaan ay diyaar ku yihiin. marka waxaan naga dhiman oo kaliya yahay inaan magaca ka bedelno tabkaas kaas waxaan soo suurtagelinay waxaan aadeynaa setting-ka aadeynaa page-kiisa setting page-ka aadeynaa waxaan leenahay edit page waxaan leenahay la yiraahdo tabskan aadeynaa welcome 6 meesha ku qoranta tegeynaa welcome 2 3 4 adee number ku qoran marka saa bedelaysa baan ku tusayaa setting-ka dheh waxaan dhahaa la yiraahdo edit setting sida meesha link ka server hoos ka yara eeg halkaan marka waxa ku qortaa magaca waxaan ku qoran la yiraahdo Hays Groups soo qor maadaama uu yahay test Hays Groups test. waxaad u yeeri kartaa la yiraahdo custom image ama sawir yar ay u yeeli kartaa halkaas waa ku dari kartaa. marka waxaad leedahay save aad leedahay kadib waxaad leedahay okay page-kan ku laaban bal inay wax isbedeleen. Hays Groups test dheh soo jeedin Hays Groups test qaybta ugu hooseeya ayuu ku qoran yahay. marka qaabkaas ayaa u sameyn kartaa Facebook tab waan filayaa ka faa'iideysatay fadlan u sii share gareey asxaabtada kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.